waxaan bartay in aanan ku kalsoonaanin qof hadalka dadka ii soo guuriya sababtoo ah maalin ayuu sidaasoo kale hadalkayga ugu guurin doonaa. Najiib Maxfuud. qofkii ku xumeeya laakiin kuu imaada asagoo raaligelin ka bixinaya xumaantaas, tawaaduca iyo dadnimadu waxay kugu waajibinayaan in aad aqbasho cudurdaarkiisa, wixii kalena aad ilaahay u dayso. Ibnulqayim. 4 shay qalbiga ayay dileen haddii ay xadkooda dhaafaan: cunidda, hurdada, hadalka, ku dhex milanka badan dadka. Ibnulqayim mar kale. calool maran, jeeb eber ah, qalbi dhaawacan waxay ku bari karaan cashirada nolosha ugu qaalsan uguna muhiimsan. Jim Carrey. hadalka kaftanka ah xaqaa'iq badan ayuu xambaarsan yahay. Albert Einstein. noloshu waa sidii majaajilo aad tigidhkeeda goosatay, ha ku cajabiso ama yaynu ka cajabinin, ka noqosho ma lahan. William Shakespeare. gabya Ingiriisa. unugyada adduunkan yaalla waxaa ugu badan oksijiinka iyo doqonnimada. Mark Twain. inaan qof dareenkiisa runta ku dhaawaco ayaan ka jeclahay in aan been ku farxad geliyo. Mark Twain. qofka laguu sheegayo waa carabkiisa iyo qalbigiisa, caqligiisa iyo waxa uu ku hadlaayo. inta soo hortay soo ma ahan waa xoogaa hilba iyo lafa ah. Zuhayr bin Abi Sulma. qofka markuu wacyi ahaan nolosha fahmo, laba ayuu mid noqdaa: inuu si abid u aamuso iyo inuu wax walba qaylo kala duldhaco. Fyodor Dostoevsky. carruurnimadaadu waxay dhammaanaysaa markaad ogaato in hurdadu ciqaab ahayn bal abaalmarin tahay. oraah kale. shucuubta tabarta daran, maqhuurka ah, akhlaaqdeeda ayaa xumaato. Ibn Khalduun. nasiib xumaa qof wax walba yaqaano laakiin aanan ilaahay aqoonin. maxaa ka fiican qof wax kale aanan aqoonin laakiin ilaahay yaqaano. Augustinus. haddii aad saaxiibka maalin gaariga ka qaadato, markaad u soo celinayso shidaal ugu soo shub. Jackson Brown. xaaladaada dhaqaale ha kala sheekaysan qof wax badan kaa hanti badan iyo qof wax badan kaa hanti yar, kaa saboolsan.